daawadayaal ku soo dhawaada wararkeennii Warshiil TV qodobada aanu idinku hayno warkeenana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo khudbad ka jeediyay fadhi gaar ah oo qaramada midoobay ay u qorsheysay Soomaaliya. Uhuru Kenyatta oo khudbadiisii qaramada midoobay uga faa'iideystay xodxodasho iyo codsi ku saabsan muranka badda oo uu u gudbiyay madaxweyne Farmaajo. Dowladda Soomaaliya oo iyaduna faahfaahisay kulankii dhexmaray labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa si adag uga hadlay xayiraadda dowladda Soomaaliya ay saartay Jubbaland. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka horyimid go'aan uu hore u soo saaray ku-xigeenkiisu. qarax xooggan oo gaadhi lagu soo rakibay ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Daawadayaal kuwaas waa qodobada warkaan idinku hayno. Haatana ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiran. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay fadhi gaar ah oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya ayaa soo bandhigay dadaalada dawladda ee kobcinta dhaqaalaha, dib u habeynta laamaha ammaanka, guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta doorashooyinka. Madaxweynaha ayaa ka warbixiyay tallaabooyinka ay dawladdu qaaday tan iyo barkii uu xilka la wareegay, kuwaasi oo lagu asteeyay maamul wanaag iyo yareynta musuqmaasuqa oo caqabad ku ah dib u kabashada dalka Soomaaliya. Waxaan si buuxda nooga go'an inaan sare u qaadno daahfurnaanta, isla xisaabtanka heer shakhsiyadeed iyo mid hay'adeed, iyo in aan si toos ah ula falgalno shacabka si ay kaalintooda u qaataan isla markaana ay uga qayb qaataan hanaanka dib u habeynta maamulka iyo maaliyadda ee dalka, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgalay dhamaystirka hanaanka dimuqraadiyadeed iyo tan doorasho ee dalka, iyadoo ay wadajir uga wada shaqeynayeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo hay'adaha dawladda ee bahwadaagta la ah sidii looga midho dhalin lahaa qorshaha siyaasadeed ee loo dhan yahay. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo bahwadaagteeda u soo gudbiyeen xog hordhac ah oo ku saabsan howlaha diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waxaan ku rajo weynahay inay noo suurto gasho qabsoomidda doorasho taariikhi ah, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Dhanka kalena madaxweyne Farmaajo ayaa si faahfaahsan uga hadlay tayeenta diiwaangelinta iyo guulaha ciidamada qalabka sida ay ka gaadheen dagaalada ay kula jiraan Al-Shabaab, iyaga oo xoreeyay deegaano muhiim ah, wakhtiganna ay sii wadaan howlgallo ballaaran oo ay ku xoreynayaan dalka. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay sii wadi doonto sidii xal saaxiibtinimo loogu heli lahaa muranka xuduudda badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Khudbadii uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay ayuu ku soo qaaday muranka xuduudda badda ee Kenya iyo Soomaaliya, waxaanu sheegay in dowladda Kenya ay sii wadi doonto inay wada hadal la yeelato dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kalena dalka Kenya ayaa uu sheegay inay ku dadaalayaan in xal waara oo saaxiibtinimo loo helo khilaafka xuduudda badda ee ka dhaxeeya labada dal. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo go'aankii golaha amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika ee 3 bishii Sebtembar ay Soomaaliya iyo Kenya ugu yeereen inay labadan dal waan ku xaliyaan muranka xuduudda badda. Waxaan rajo weyn ka qabaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aqbali doonto, diyaarna u tahay raadinta xal waara oo la wada aqbali karo oo loo helo muranka xuduudda badda, ayuu hadalkiisa ku sii daray madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo hadalkiisa sii wata waxa uu ku daray in qaramada midoobay sidoo kale ay qabto in xal laga gaaro muranka badda ee Soomaaliya si waliba saaxiibtinimo. Sida aan ognahay dastuurka UN-ka amaba qaramada midoobay waxa uu door bidaya in wada hadal lagu dhameeyo wixii muran ah. Sidoo kalena qaramada midoobay waxa ay qabtaa in xadbadeedka dalalka lagu dhameeyo arrimo saaxiibtinimo oo raali laga wada yahay, ayuu yiri madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa sheegay in xayiraadda dowladda Soomaaliya ay saartay Jubbaland ay tahay sharci darro, isla markaana ay baalmarsan tahay dastuurka dalka iyo awoodda uu siinayo maamul goboleedyada. Siciid Deni waxa uu sheegay in hawada Soomaaliya aanay ahayn tukaan uu qof leeyahay, isla markaana ay tahay hawo sharci ku dhisan oo sharcina loo marayo. Madaxweyne Deni oo ka mid ah madaxda lagu casuumay xafladda caleema saarka ee madaxweynaha Jubbaland
balse ay saamaysay xayiraadda la saaray duulimaadyadii Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in mowqifkiisa aanay waxba iska bedeli doonin uuna ka qaybgeli doono caleemasaarka Axmed Madoobe. runtii hawada Soomaaliya ma aha tukaan qof leeyahay, waa hawo sharci ku dhisan oo sharcina loo maro oo qawaaniin caalamiya leh. aad baan uga xumahay waxaad gudubka dastuurka ee arrintaasi ku saabsan, suurtagalna ma aha wax dastuurka dadka uu xaq u siiyey in markaasi ay dowladdu ka qaado. dhanka kale madaxweynaha Puntland ayaa difaacay heshiiska maamulkiisu uu la galay shirkado laga leeyahay Imaaraadka Carabta, isagoo oo cadeeyay in mas'uuliyadda loo dhaariyay ay ka mid tahay inay horumar ka sameeyaan dalka sida uu hadalka u dhigay. isagoo arrintaa ka hadlayana waxa uu sheegay, waad ogsoontihiin waxaa jira cadow badan oo aynu leenahay, cadowgeennu waa badan yahay, ha noqdo inay meel walba ay markaasi inagaga furayaan furimo dhinacyo badan. waxaan kaga bixi karnaa innaga oo wada shaqaynayna laamaheenna amniga, la shaqaynayna oo markaasi isku duuban, taasi ayaan kaga guulaysan karnaa ayuu yidhi madaxweyne Dani cadowgeena. ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ciidamo dheeraada ay u direen magaalada Kismaayo isla markaana ay sugayaan amniga magaaladaasi. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qaatay go'aan ku saabsan inuu shaqada u fasaxo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka. guddigani ayaa waxa hore u kala diray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo markaasi soo saaray warqad rasmiya oo uu ku kala dirayo guddigani. gudoomiye Mursal ayaa shaqada u fasaxay guddigani oo hore la sheegay in markaasi si rasmiya loo kala diray, isla markaana kala diristaasi ay muran badan ka dhalisay golaha dhexdiisa. guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa dood badan markaasi arrintani ay ka dhalisay. sidoo kale dowladda Soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna ka walaacsaneyd guddigani oo hore ugu eedeeyay xukuumadda inay faraha kula jirto musuqmaasuq baahsan. lama oga in gudoomiye Mursal uu arrintan la ogiyay ku-xigeenkiisa oo hore u kala diray guddigan iyo in kale. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegaya inuu halkaasi maanta ka dhacay qarax xoogani. qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Soobe oo hadda loo bixiyay 14 Oktoobar, waxaanu ahaa qarax xoogan oo laga maqlayay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa waxa uu ahaa mid gaadhi lagu soo xidhay oo la qarxiyay xilli uu marayay isgoyska Soobe. wararka ayaa waxay sheegayaan in qaraxu uu ahaa miino lagu dhajiyay gaadhiga oo noociisu ahaa nooca aanay xabaddu karin ee raaxada ah, oo ay wateen injineero Turki ah oo ka shaqaynayay dhismaha jidka u dhaxeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. 2 qof ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhaawacmeen oo iyana u dhashay Turkiga, waxaana gaadhiga lahaa injineerka dhisaya wadada Afgooye iyo Muqdisho. waa markii labaad oo la qarxiyay injineerada Turkiga ah ee dhisaya jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye oo ay markaasi maalgelinayso dowladda Qatar. dowladda Ingiriiska ayaa soo saartay warbixin ay ku soo bandhigtay xogo xasaasi ah oo ku saabsan tallaabooyin ay kooxda Al-Shabaab ka qaadi doonaan muwaadiniin ay ka mid yihiin kuwa Ingiriisku. xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska oo soo saaray qoraal ayaa sheegay in muwaadiniinta u dhashay dalka Ingiriiska ee ku sugan Soomaaliya ay ku wargelinayaan in si degdeg ah ay uga soo baxaan Soomaaliya, maadaama la helay xogo sirdoon oo ku saabsan in Al-Shabaab ay damacsan yihiin afduubyo ay u geystaan muwaadiniin ay ka mid yihiin kuwa u dhashay dalka Ingiriiska. xafiiska ayaa ku wargeliyay muwaadiniinta Ingiriiska ee u dhashay ee jooga Soomaaliya ee howlaha muhiimka ah ka haya inay yimaadaan magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, oo uu xafiisku sheegay inay yihiin 2 magaalo oo amnigooda si weyn la isugu halayn karo. dowladda Ingiriiska ayaa wax faahfaahin ka bixin qorshaha ay Al-Shabaab damacsan tahay iyo meelaha lala beegsan doono, balse waxa kaliya oo ay ku soo koobtay warbixinteeda inay heleen xogo ku saabsan in kooxaha argagixisada ahi ay qorsheynayaan weerarro argagixiso iyo afduubyo ay kula kacaan ajaaniibta ay ka mid ka yihiin dadka Britishka ahi. xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa u sheegay muwaadiniinta u dhashay dalkaasi ee doonaya adeegyada qunsuliyadda inay ka heli karaan wadamada Kenya iyo Itoobiya. Ingiriiska ayaa dhowr jeer oo hore soo saaray digniino ku aadan weerarro ay damacsan yihiin kooxda Al-Shabaab. sidoo kalena Ingiriisku ayaa inta badan warbixinada baraarujinta uu ku socodsiinayo muwaadiniintiisu waxa uu inta badan ku ammaanaa Somaliland oo uu Ingiriisku ku tilmaamay inay tahay meel amnigeeda la isku halayn karo. daawadayaal intaasi ayaanu ku soo afmeerinaa guud ahaan warkii aanu idiin haynay. tan iyo intaynu ku kulmi doonno warkan xiga waxaanu idinkaga tegaynaa. assalaamu calaykum.